xogayaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaridka ee wadani Hinda Jaamac Xirsi ayaa maanta shir jaraa'id ku qabatay magaalada Buuraha xarunta gobolka Togdheer kaga hadashay xaaladda cadaaladda Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana ay sheegtay in xaaladda cadaaladdu ay aad u liidato marwaxinta iyadoo ka hadlaysa arrimaha cadaaladda waxa ka mid ah hadaladeedii sida tani kuwaas oo ah maxaan dhahday bahda garsoorka wasaaradda garsoorka haddii aan idhaahdo ama bahda garsoorkaba waxa weeyaan sida aad wada ogsoontihiin xukuumadda xisbiga kulmiye waxay in badan ku celcelisaa ama xaqiiqiyan ay wax ka qabataa dhismaha gobollada dalka qaarkood kuwaas oo ah ama dhisme loo dhisay wasaarad ama dhalinyaro ama gaydhadh ama wadooyin wax fara badan runtii ayay ka qabataa haddaba waxaanan fahmin oo maanta aan rabaa bal inaan xukuumadda u iftiimiyo waxyaabahan waxqabadka ah ay xukuumaddu qabanaysaa ma waxa loo qabtaa shakhsiyaad la danaynayo ma waxa loo qabtaa wasaarado gaar iyaga loo danaynayo ma waxa loo qabtaa gobollo gaar ay xukuumaddu u dan waa sidee qaabka ay u qabsoonto horumarinta iyo waxqabadkaas sidee bay u dhacaan haddaba waxaan jecelahay inaan bulshada reer Somaliland dal iyo dibad meel kastoo ay joogaan iyo xukuumadayda maanta talada haysaba aan bal u iftiimiyo baahiyaadka ka jira bahda garsoorka marka la yiraahdo qofkii de aqoon u leeyahay uu garan karaa qofkii aan aqoon u lahayn haddii aan u sharaxo waxa bahda garsoorka la yiraahdaa ciidanka booliska oo u samaysan nabadgelyada asluubta oo u samaysan xabsiyada iyo garsoorka maxkamadaha garsoorayaasha gudoomiyayaasha xirlaaliyaasha iyo wixii la mid ah garsoorka oo xirlaalintiisa wata markaan taas iftiiminteeda intaa ku dhaafo waxaynu wada ogsoonahay maanta waddankeena Somaliland dayaca kaliya ee ugu faraha badan inuu ka taagan yahay bahda garsoorka waxaynu wada ogsoonahay min sayla ilaa baran waxay ku jiraan kuwii uu Ingiriisku soo gaaray nasiibkooda guryihii uu Ingiriisku dhisay ayay ku jiraan maxkamadda Hargeysa haddaad eegtid ta Burco haddaad saaxil eegtid haddaad sanaag eegtid haddaad sool eegtid waxweeyaan in allaale iyo inta ay maxkamadi leedahay ee maxkamadiba ka jirtaa waxay degan yihiin dhismihii qadiimka ahaa ee 60 iyo siyaadadii uu Ingiriisku dhisay ama kontomeeyadii uu Ingiriisku dhisay xukuumaddu horta wali ma aragta madaxweynuhu ma gaaray wali oo maxkamadaha ma tegi waxaan oran karaa dee malaha lama arag manu tegin baan oran karaa ومحمد علي أحمد محمد كابي ورقة تلفزيون كمال حبنا بولشة تي في مقالة برعو.